بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم إني نسألك العفو والعافية يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم أنت ربي وأنا عبدك يا رب العالمين. الحقيقة waxaan dhegaystay odaygii Faroole oo ka kacay guubaabo ka kacay dalka burburiya ka kacay hebelna dhaafiya uruy nimanka wax badan baan ka warramay iliidkooda iyo siyaasiyiintooda. uruy nimankaas qof ay wax iskaga tirinayaan ma jiro. uruy nimankaas dowlad Soomaaliyeed ma rabaan. uruy nimanka iliidka ahi waan idinka soo sheekeeyay maalin walba ilaa 1969 inqilaabkii jabhaddii markay kabna laadlaadinayeen kabna ay qaar ku siteen qarqarka oo xamar soo galeen markii ay dabadeedna loo magacaabay Hargeysa markii ay dabadeedna madaafiicda ku tuureen nimanka degan Hargeysa. uruy nimanka nin aad u yaqaan baanahay. cidda wax qortay ee bawaagta qortay ii kaalaya wixii aan ku sheegayay waxa Faroole ku hadlay. kun goor baan u sheegay war 50kii lama joogo 60kii lama joogo 70kii lama joogo 40kii lama joogo Cabdirashiid dimay aadan cadde dimay nuwal dadkan maanta nool dad garanaya meesha aad kabanka ka garaacaysaan maaha. waa dad cusub, waa xilli cusub, waa taariikh cusub, waa ummad cusub. nin waliba wadinka hunguri weeye oo waxa aad doonaysaan wax ka weyn buu doonaya. iimaanka Allah idin geliyo. Faroolena waxaan leeyahay waa warlord بالمعنى الكلمة وإسهيسن كرواي وحي الصومالية أتكيي ليسان إذن كي جرتا قضبكا انتاسان كدافيا ما نفستو ورقات أي كو قولانتاي أو جامع علي جامع وهوريو بان أركاي فرينتا جامع إيجا قارسي تدكن ما نطلو العد ما نفستا قراني سامجتو manifesto waa tii xamar isku dirtay, waa tii dhiigga daadisay, waa tii hoog iyo halaaga keentay, waa tii horseeday in la qaxo, waa tii horseeday in gabdhaha la kursado, waa tii horseeday saaka jaamac cali jaamac iyo cali cabdullaahi cusable ila yimaadeen manifesto. dhalinyarada facebooka ku jirtay waxaan idin leeyahay manifesto ma taqaaniin. waxaan idin leeyahay yaa idin geeyay qurbaha oo idin qaxiyay waa manifesto. baaba gibnoom taani baan leeyahay jaamacna waa iliidka kama foga Faroole. waa marba gidaar bay jabinayaan si ay xukunka madaxweyne iyo prime minister iyo wasiir daakhili iyo khaaraji iyo ra'iisul baarlamaan intaba iyaga raba. manifestana intaasaan leeyahay. dadku waa nin halka ka xora, waa nin halka ka xora, waa nin halka ka xora. uruy anigu xor baanahay ninna uma rahmani. Cabdirashiid Khaliif nin la yiraahdo oo wasiir ka ahaan jiray dowladdii Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa wuxuu ku yiri gudoomiyaha guddiga doorashooyinka libaaxya ishaya uruy xaliimo dusha wax aan lahayn hasaaran.
guddoomiyaha guddiga doorashooyinka xaal baa siiyey bal gabadhaa qof kasta oo hadla oo meel kaga dhacaa waa Puntland waa mid eliitkii sidaa Faroole iyo Jaamac Cali Jaamaca iyo mid iyagu ay ku riteen caloosha oo aan ka soo saarayo oo ka soo qufayo oo le maya iida calooshooda ku jirayay idinku qof kale oo guddiga doorashooyinka maagaya bal arka Cabdirashiid Khaliif warka uu ku yiri guddoomiyaha guddiga doorashooyinka waa warkii Faroole waa warkii Siciid Deni waa warkii Axmed Madoobe Cabdirashiid Khaliif waa nin reer Galdogob ah dadkan doonaya inay dadka bartaan Cabdirashiid waxaan leeyahay war cali daacun baad ka fara badan tahay oo ka cilmi badan tahay oo ka lacag badan tahay oo waliba waad ka yar tahay maxaa kalsoonida kaa qaaday oo aad nin kula mida ugu sacabtumaysaa war ku soo noqo kalsoonida adoo xora baa Ilaahay ku abuurtay adoo xorana waad dhimanaysaa qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa ciddii ay doorasho shaki kaga jirto doorasho way dhici waxaan rabaa markaa inaan taariikh yar soo qaato kolkii anigu aan ka imi Asmara oo dee wixii Asmara lagu hayay aan sii gartay ilaa markhaatiyaal bay leedahay Djibouti baan imi waan ka tegayo Yemen baan tegay waa soo noqdayo iyagoo nimankii aan sii sheegay maalintii aan joogay Asmara aan idin waa la isqiyaamaynaya baa qolo iigu timi Indhabuur iyo yani wixii golaha dhexe galay war waa maxayo telefoonana loo soo diray marti dambaa madaxdii Sheekh Shariif oo yimaadeen anigu maqaaxi Cabdulla yiraahdo uma dhaafin doorasha halkaa ka dhacday 2 sano ah waxa Cabdullaahi ka tegay 8 bilood waa imisa waa 2 sano iyo 8 bilood sanadkii Kampala waa 3 sano iyo 8 bilood oo Sheekh Shariif waa 3 sano iyo 8 bilood waxay ahayd 2 sano markay dhamaato in doorasho la qabto iyo 8 bilood uu ka tegay ninka la yiraahdo xaq buu u leeyahay in la siiyo maxaa yeelay de waxaad mandate 4 sano ama 8 bilood ka hadlay wataanu taariikhda waa soo taagnaa tii Xasan Sheekhna waa soo taagnaa sidii aan u kritikaareynayay dawati aniga Xasan ii soo diray ciidan kolle afduubayo nabarku igu yaalaaba isaguna wuu ku darsaday Xaliimo waxay keentay golaha fulaydan laga bilaabo oo 13 bilood waa 5 bilood haddaynu 5 bilood qaadan kari weynay oo baarlamaanka ka dambeeyo anigu waxaynu qaadanayno ma ogi ereygan la yiraahdo maamul goboleedyadu waa kuwa halkaas Soomaali dhigay waxayna ka faa'iideen 2 jeer bay faa'iideen nimankaas maamul goboleedyada ah ee waliba Kismaayo iyo Puntland waa markii Sheekh Shariif madaxweynaha iyo markii Xasan Sheekh madaxweynaha war haddaad faa'iideen de waxa yimi mid idinka ah oo idin yiri Soomaali baad la mid tihiin ee iimaanka yeesha wadamkaana intaasaan ku dhaafaya ninkaan dawlad doonayno meeshaad ka gashaa baan ka gelaya waxba aniga dhulka igama yaalin waxay aniga ila tahay Abdullaahi Yuusuf baa igu yiri haddaan sidaa moodayno inay u dhacayso jabhad ma aan aasaaseen ninka berina oran doono
sidaa haddaan moodayey waxbaa ma sameeyeen. war maanta ayaa taladu gacantaada ku jirtaa. war maantaad oday tahay. war maantaad wadaad tahay. war maantaad shiikh tahay. war maantaad ciidan tahay. war maantaad dhallinyaro tahay. war maanta yaan taladu aanay mucaaradka ka hoos bixin. waa inay iimaansadaan inay doorasho dhacayso. alxaqiiqa rabbana aatina fi dunya xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام.